leeyahay maasha allah baan leeyahay maanta nabadii iyo farxad ayaanu ku damaashaadaynaa haddaanu nahay reer Puntland meel kasta aan joogno iyo Soomaaliya farxad baan ku damaashaadaynaa maasha allah sida waragtaa doorashadan Jubbaland ka dhacday madaxweyne Axmed Islaan Maxamed uu dib ugu soo noqday waxaan u arkaa doorasho xaq iyo xalaal ku dhacday oo muhiimiyada sidii laga rabay noqotay oo nabad ku dhacday oo maasha allah ummadoo dhan ay wada fiirinayso sugaysayna nabada balaaran oo si ambaqaaday maasha allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu maxamed cabdi jaamac halkan waxaan ku soo dhaweynaa madaxweynaha Jubbaland waxa jideerayaan ugu talagalay hadii aan erayada akhriyo waxay leeyihiin marka hore casiis baan mahad celin u jeediyay markii ay cuqaash iyo coomarka iyo garboodka iyo culamaa diinka iyo caamiye aqoon-yahan anoo kala cayimahayn dadka caan bariday salaan sare ka marin markii ay cirooliyo ilaa iyo caruuraha 20 ka sharaxane kala jooga cirifada cid ku doorsan mayno Axmed Beedo wanahay cilmi lagu ma gaaro waa caalam sheeqiyo hoyga culunta ciideena hooyo calanka dadweynaha danahooda u cugo xilibaan codkaagiyo aftidaada Axmed Siid markii ay aad baan islaamiya waa soo dhaweynaa madaxweynaha waan u hambalyeynaa madaxweynaha Jubbaland waan u hambalyeynaa hambaliyo sifacan maana bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa asxaabi mahad caabi waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe kartiya karaama ayaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shacab weynaha reer Jubbaland aad iyo aad baa ugu mahad celinaya Jubbaland waa Puntland Puntlandna waa Jubbaland hambaliyo magacaygu waa Cabdulqaadir Maxamed waxaan ahay caaqil reer Puntland waxaan hambalyeeyaa doorashada ka dhacday Jubbaland marka hore Ilaahay maadi waxaan Ilaahay uga baryayaa nabadgelyo waxaan kula dardaarmayaa inay ku dadaalaan qarannimadooda iyo dawladnimadooda inay iska ilaaliyaan qalaanqal iyo munaafaqad iyo haddii alla waa kore wixii wax u geysanaya inay ka taxadiraan waxaan u hambalyeeynaa dhammaan reer Puntland oo arkaysaan waxa halka la isugu yimi munaasabada balaaran lagu taageerayo Jubbaland waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe sidaa darteed dhammaan dhalinyaro iyo waayeel ummadda halka isugu timi dawlad iyo shacab waxaa loo hambalyeeyaa munaasabada doorashada ka dhacaysa Jubbaland intaas oo ay u badan tahay anigu oday baan u ducaynayaa Ilaahay inuu bilada ka hayo laakiin ha ka taxadireen wixii dhibaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta aad baan ugu faraxsanahay guushii ay gaareen dhammaan ummadda reer Jubbaland waan u hambalyeeynaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Madoobe guusha maanta Jubbaland ay gaareen maaha guul ay gaareen ummadda reer Jubbaland kaliya waa guul ay gaareen ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa leenahay hambaliyo waxa dooratay qofkii mudnaa qofkii maanta ummadda Soomaaliyeed meesha ay taagan tahay ka saari lahaa doorateen waxa leenahay hambaliyo Jubbaland hana qaadayo taasi waa hubaal halyaygii Axmed hadii looga dhigay hoggaan oo Maxamuud noo habaynayo hawsha kale oo ciidamadu nabada hubiyeen hariyo dharaar horumar gaaraya ilaahow hanaga halayn waxaase ku sareeyay hadalkayga seenadale madaxda loo saantay dunidoo samaanta jecel war Soomaali isu soo dhaweeyo sinjaar ka dhiga oo 18 gobol saacad wada casuma oo xumaanta ka saara bulshadeena saliyo baar islaamku midab walba iyo muuq walba iyo meel walba jooga baan halka ka salaamaya waxaan gaar ahaan waxaan salaamaya dadka Soomaaliyeed baan salaamaya runtii waxa weeye siyaasaddu waa webi xagawaanan wax ajaayib weeye ani waxaan leeyahay marka aniga fikradayda ahaan aan ka hadlayaa in Soomaali ay midowdo oo isreebreebkan siyaasadda maaragtay dawladaha shisheeye waxaas aan iska maaragtay aan iska kaashano oo midnimadeena iyo isku dumnideena iyo Soomaalinimada inaan ogaano iyo islaamnimadana u horeysa intaas aan leeyahay marka koowaad waxaan leenahay madaxweynaha xaq ah oo la doortay saacadii hadda la soo dhaafay hambaliyaan leenahay waxaanu leenahay
doortay si xaqa iyo sifa xaqa iyo mandate sax ah ninka lagu doortay waa madaxweynaha xaqa ee Jubbaland sharciga iyo dastuurka ku qotoma waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed dhamaan meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay hambalyo waa in lagu taageeraa waxaanu leenahay waa maalin taariikhi ah oo aad iyo aad u qurux badan oo doorasho xaq ah oo xalaal ah oo waxa weeye xaqa waafaqsan ay ka dhacday waxa weeye maamul goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaanu leenahay waa madaxweynaha xaq ahaa waxa weeye muddo badan ay sugayeen ummadda Soomaaliyeed in doorasho xaq ah oo xalaal ah ay halkaas ka dhacdo waxaan leeyahay cidii arinta ka soo horjeeda waxaan leeyahay muwaadin maaha waxaan leeyahay danta Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed wax ka cid ka shaqeynaysa maaha waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo gaar ahaan ummadda reer Jubbaland hambalyo waxaanu leenahay ammaanka iyo barwaaqada iyo baraaraha iyo horumarka aad gaadheen Allah idin siyaadiyo annaguna waa idinku garab taaganahay waxaanu leenahay ummadda reer Jubbaland waxaanu leenahay awalba waxaad haydeen ummad wax way isku duuban cadawga meel uga soo jeeda midnimadooda wax way gacanta isku haysta horumarkooda wax way aad iyo aad wax way u xigsada haddana waxaanu leenahay horumarka aad gaadheen waa idinku taageeraynaa rabbil caalamiin halkan waxaan rabaa inaan hambalyo uga diro madaxweynaha cusub ee Jubbaland mudane Axmed Islaam oo ah madaxweyne xaq ahaa oo lagu doortay magaalada Kismaayo runtii aad iyo aad ayaa shucuurtaydu ku caasan tahay lama soo koobi karo waxaan weeyaa taageeradayadu maanta waxa weeyaa reer garow waa u jeedaanin aad iyo aad waxaan leenahay shacabka reer Jubbaland isku tiirsanaada horeyna u socda bilaay tawfiiq soo koobi karo waxaan aad taageeray Axmed Madoobe oo la soo baxay ashcuurtooda aad baa kacsan tamaanta waxaan dareemayaa madaxweynaha doonaya inuu soo baxay waan ka taageersanahay magacayga Ismaaciil Maxamuud Jaamac yahada aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay wixii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaan aad u soo dhaweynaa madaxweynaha cusub horeyna u ahaa madaxweynihii hore Axmed Maxamed Islaan waxaan leenahay hambalyo guuleysta hore u socda aad iyo aad baan ugu hambaliyeynaynaa waxaan leenahay guul iyo gobonnimo iyo meesha waxa ka dhacay wax aad iyo aad loogu farxo waxa Jubbaland hana qaadayo taasi waa hubaal halyaygii Axmed hadii looga dhigay hoggaan oo Maxamuud noo habaynayo hawsha kale oo ciidamadu nabadda hubiyeen hariyo dharaar horumar gaaraya ilaahow hanaga halayn waxaase ku sareeyay hadalkayga seenadale madaxda loo saantay dunidoo samaanta jecel war Soomaali isu soo dhaweeyo sinjaar ka dhiga oo 18 gobol saacad wada casuma oo xumaanta ka saara bulshada
bulshadeena saliyo baa